تارك الصلاة بالكلية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. dhammaan taariku salaadka adoonka iyo gaalnimada waxa u dhaxeeya salaada qofka muslimka ah. الله عز وجل يقول ما سلككم في سقر. الله dambiilayaashii baa waxa lagu dhihi maxaa idin geliyay saqaro iyagoo naarta ku jira waxa ugu hore oo ay ka cabanayaan waa قالوا لم نكن من المصلين. waxay ku jawaabi maanan ahayn kuwa tukada. intaad dhigaysanayso qalbigaaga isi waa kan mid ka faafay shanta salaadood ayuu tukadaa laakiin masiirkiisu waa naar. shanta salaadood ayuu tukadaa har iyo habeenba midnama kama tago laakiin masiirkiisu waa naar. ma aha hadalkayga waa hadalkii alle. shanta salaadood ayuu tukadaa laakiin hal mid ayuu ku dhacay salaada waqtigeeda ayuu dibdhigaa. haddaba arrintaasi maxaa u daliila? طيب ايش الدليل؟ اعطيني دليل. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وادي في جهنم. waxaase ka gadaal maray kuwa xun oo dayacay salaadooda oo raacay waxay naftoodu doonto oo xumaana waxayna la kulmay sharka lagu sheegayna waa jahannama. ibn mas'uud wuxuu leeyahay adaa'u salaa waxay dayaceen salaadooda wallahi maynan ka tagin salaada hase yeeshee waqtigeedii ayay dib dhigeen. alla suuratul maa'uun wuxuu ku leeyahay waa aayad mid ka weyn iyo mid ka yar buu u xifdisan yahay. waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan waa munaafiqiinta ee haddana halmaamsan salaadooda. waa maxay micnaha saahuun? waa qofkoo salaada dayaca waqtigeedii ka taga khushuucdeedii ka taga macaanidaas iyo macaani kala badan bay leedahay laakiin qofka salaada waqtigeedii aanan tukan oo ka dib dhiga waxay ka mid tahay dambiyada waaweyn waxaana loogu handaday naar hadduusan ka toobad keenin.